Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa ay xudun u tahay isbeddelka Geeska Afrika. Loolan adag ayay darbadiiba wajahaysaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Dib u doorashada bishii May ee muddaxileedka labaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhiirigelisay danaha Masar ee Soomaaliya, sida uu ku warmay wargeyska Al Monitor ee ka faalooda arrimaha Carabta iyo Geeska Afrika. Maxamed Cabdi Waaxid oo horey uga tirsanaan jiray sirdoonka Masar oo ka jawaabayay su'aalo uu wargeyska Al Monitor weydiiyey oo ahayd waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay Masar ka doonayso Soomaaliya, ayaa wuxuu ku jawaabay: Soomaaliya waxay door muhiim ah ka ciyaartaa isku dheelitirka loolanka ka dhex jira dowladaha Afrika ee ku saabsan qabsashada gobolka, sida damaca Itoobiya. Sidoo kale waxay muhiim u tahay loolanka caalamiga ah ee Afrika, ayuu yidhi. Cabdel Waaxid oo hadalkiisa sii wata intaasi wuxuu ku daray: Masar waxay taageertay mowqifkii Soomaaliya tan iyo markii la riday taliskii Siyaad Barre 1991 iyo guulihii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee 1997, iyadoo la ilaalinayo xiriir dheellitiran oo ay la leedahay dhammaan gobollada Soomaaliya. Qaahira waxa ay u fidisay barnaamijyo taageero iyo deeqa ah Somalilan. Waxay marar badan isku dayday inay taageerto wadahadal dhex mara Somalilan iyo dowladda federaalka Soomaaliya intii uu xilka hayay Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdilwaaxid oo ka hadlayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa yidhi: marka loo eego siyaasaddii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxa uu u muuqdaa mid u furan gobolka Carabta, taas oo ka soo horjeeda siyaasaddii colaadeed ee uu u qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo doonayay inuu xulufo la yeesho Turkiga oo uu galo xerada Eritrea iyo weliba Ethiopia. Maxamed Cabdi Kariim oo ah cilmi baare ku takhasusay arrimaha Afrika kana tirsan jaamacadda Qaahira ayaa u sheegay All Monitor in dowladda Masar ay ka filayso Xasan Sheekh Maxamuud dabacsanaan iyo wada shaqayn aad u xooggan. Farmaajo ayaa loo arkayay in Ethiopia uu xulufo la lahaa Eritrea, sidoo kale uu soo dhaweystay, halka dowladda Masar oo jaamacadda Carabta ay iskala tirsan yihiin uu faquuqay. Sidoo kale wuxuu faquuqay dowladda Jabuuti oo aynu walaalanahay, taasi oo laga dhadhansaday inay tahay biseyl siyaasadeed oo aad u xooggan oo Farmaajo uusan gaarin.